السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وسلام يا أرديدا كحر يوتيوبك هيليا أكاديمي waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka walaal soo dhawaada dhammaantiin insha allah maanta waxaynu qaadan doonaa casharo muhiim ah insha allah waxay u badan yihiin technical iyo psychology labadaba insha allah waynu maraynaa horta aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ardayda ay soo approach garaynaysa inkastoo sanadkan aynu magaranaysaa howlo kan sanadkan waa sanadka scaling ardaydu waxay rabnaa inay dhaqaalo fiican sameeyaan inay mataqaanaa kalsoonidoodii isku filnaansho ay gaaraan waayo qof kastoo imaanaya halkan waxaan ku jeclaa waxa runta ayuu ogaanaya sida been loogu sheegaya aakhir runta le waa ogaanaya marka ardayda qaar horto aad iyo aad baa qofkii youtube-kan ku xiran horta uu nasiib badan yahay aad iyo aad shakhsiyan uu nasiib badan yahay waxaan aad iyo aad uga digayaa walaalaha soomaaliyeed meel kastoo dunida dacwada ka joogaan inaad ka digtoonaataan dadka wax idin sakhiraya dadka aanan garanayn waxay sheegayaan waa iska badan yihiin dadku marka inaad intaa ka digtoonaataan waxa waaye labada kulaatan saddexda haddaad rabto inaad barato xirfadan walaalayaal waxa waaye waa xirfadaad baran karto cidna marti ugama tihid laakiin waxaan halkan maanta ku sharixi doona insha allah haddii kugu dhacdo oo anaga nagu soo dhacday way adkaanaysaa guushaadu way adkaanaysaa haddaan technicalka ku hormarno horta lacagtan ayaa jirta inaan jimcihii sugeynay waa dareemaysaan waa sababtan u sugeyno ardayda istaraatiijiyadda isku nahay waa lacag qurux badan xaqiiqdii waxaa moodaa in dhabaltoob uu halkaa yaallo soo soo ma jeedid akhlaaqda markaad taqaan waxaa sugaysay waxba ma ceejinaysid just inaad iska sugto wixii taasaa aad u qurux badan marka arday baa jira marka recapkan haddaan idinla wadaago halkan markuu doojigan xirmo candleka doojiga arday baa jiray arday baa jiray halkaa halkaa long position okay arday baa jiray inay halkaa ka qaateen 30 pip asalkooda marka halkan buu ku yaalay stop loss waxaa la dhahay jira halkaa yes aad iyo aad buu u qurux badan yahay maaha so tradekan oo kale waa trade aad iyo aad u qurux badan so way qaateen safarada iisoo dirdiraya laakiin ani ahaanteed ma qaada shaksiyan waayo more observed waxaan ahaa the bigger picture halkan ayaan fiirinaya waa counter trend movement ayaa la dhahaa trade as days bal taabashooyinka ayuu aadi dadkuna way ku kala indha dheeraan karaan okay marka trade aad u qurux badan ba haddii tradeyadan saa usoo laalaabtaan ardayda qaali joogteeya inaad qaadataan okay joogteeya inaad qaadataan haddaan ka tagno haddaan ka tagno maxaa u baahannahay hadda waxaan u baahannahay wax waaye how horta inaad fahanto system waxa la dhahayaa jiraya strategies okay hadda cashir kusoo degno strategies waxa la dhahayaa jiri doona insha allah oo aad ugu imaanaysaan suuqa forex so aad iyo aad baa hadda walahi mararka qaar ardayda qaali ma og tahay quote aan aad u jeclaa baa jirta waaga psychology aan jiro waxay ku leeyihiin we don't see things how they are we see things how we are okay uma aragno waxyaabaha siday yihiin laakiin waxaan u aragnaa sidaan nahay annaga so qof baa laga yaaba maanta in caqligiisii gaaban yahay wax kasta marka wuxuu ka arkay wax gaaban ayaa qof maanta caqligiisu inuu dhisan yahay wax kasta wuxuu ka arkay inuu dhisan yahay sidaa tahaa marka wax u aragtaa marka dadka dhan uma wada hadli kartid soo maaha dee waa dhibaato haddii sidaa tahay keliya uu yahay xalku adiga keliya laga yaabaa inaad weli strategy ceerinaysid strategy aaminsantaha weli strategy inuu strategy ka fiican yahay so dadkii ka waran cusbaa marka misleading ayaa ku samaynaysaa adhooda ayaga waxay aaminayaan strategiga ka halka wuu fiican yahay ka ka fiican yahay wuu aaminaya ma og tahay laakiin it's not the case sidaas maaha laakiin sheekadu straatijiyada aan shaqeyn male kan labada line isticmaala indicatorada isdhaafayo he's profitable marka waxa hadda halka ogaanaysid marka it's not about the strategy
استراتيجية maaha wax meesha problemka dadka caqliyadooda waa problemka oo marka waxaan u baahanaa inaan marka walaalayaal intaynu iska dayno qabka iyo qurunka iyo mataqaanaa caqli xumada waxaynu u baahanaa inaynu soo jeesano inaynu develop garano caqligeena maxaa strategy what's so special about strategy wax kale ma waa system kuu sheega meesha haddii halkaa tagta lacagta inaan qaadano waajibkeenu waaye bis maxaana waajibkeena ah ma ogtahay caqligeena anaga future momentska kama fikerayo aniga ahaanteeda personal caqligeyga future moment kama fikero it's just now opportunity follow ayaan ujeedaa fursadda hadda ayaan ujeedaa waa qaadanaya xataa laga yaabo marka laba beri kahor haddii trade saa camal oo qaata aan lose gareeya tan haddaa hadda helo waa qaadanaya 35 bib boom tradekayga waa TP1-kayga ilaa waxaan sugayaa trilinka that's exactly so saasaan u qaadanaya TP2-gayga ilaa meesha levelka TP1-kayga TP2-gayga ilaa so that's exactly wax miyaan sameeyey mucjiso ah system una raacaya soo maa sida hadda u raacay systemkayga aroorti markaa soo kaco system baa leeyahay habit system ii degan oo application uu systemka raaca forecasting gare wax akhri jimicso so on ardayda xiisadtii systemka raacayo kana uu ila mid yahay so always in trading organize inaad tahay waa okay marka ma jirto marka istiraatiijiyada waxaa arkay arday badan oo meesha hadda waxaa jira nin la dhahayo gorilla istiraatiijiyadu la yimi soomaalidii badi way ka nin kalaa jiri jiray phantom la dhahayo nin kalaa jiri jiray waxaa la dhahaa isagana wuxuu ahaa magaciisu iga maqan yahay isagana break and retest trade garan jiray soomaalida ku yaaceen ninka kulli laakiin iyaga kasoo farcameen falcon bay kasoo farcameen kulligood dad arday laakiin ayaga waxay intay isku dardareen waxay magacyo bedelay hadda gorilla oo kale continuationadu wuxuu bixinaya bullet miya waxsaas soo bedelaya ayaga qolo kale haddana timi oo soomaalidu u wada yaaceen oo isticmaalaya waxaa loo yaqaano institutional strategy soomaalidu u wada yaacay so soomaalida dhibaata haysata walaalayaal dadkan ka dhex baxa walaa runtaan idiin sheegaya waxay idin kusoo kordhinayaan wareer ayr ma jiraan lifta ka soo qaado kosof wuu kuwaalayaan waxay rabaan tradingkii inay kaaga dhigaan complicate waxa simpleka ah waxay rabaan inay kaaga dhigaan wax aad 4 sano 5 sano ku dhibaatood wareer inay ku geliyaan markaan runta kuu sheego strategy ka fiican mala iska ilaali strategiyadaada ku ekow waxaaga fahan baro أنا markuu arday imaado oo idho ustaad istiraatiijiyadda aniteeda qasab ma inaad trade garaysid adiga taada aamin baan dhaha taada shiftaa soo sameynin teeda imaan taa huboodin taa imaan intee waqti kaa dhumaya you won't be consistent marka waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo saddexdan shay think expectation iyo belief waa dadku way kala qaadaan because waa kala qaadan yihiin think waa fikir ama fikrad expectation waa malo ama rajayn beliefna waa aaminaad saddexdaas ani ahaanteed waxa u bixiyay tab because of saddex hadaad qorsos waa tabna hadaad af english u sii tab waa cajil waa waxa caqligaaga programinaya haddii think khaldan haysatid ama thinking methodology haysatid waa dhibaato thinking methodology oo ku saabsan nidaam khaldan hadda day istiraatiijiyadda ama tradingka waxay u baahan tahay the first step waa thinking methodology maaha strategy laftiis laakiin waxa fikir istiraatiijiyad ayaa u baahan tahay fikirkaasoo ah probabilistic oo markasta waan sheegaa soo maa probability ay u baahan tahay this is game of waa inaa caqliga markasta this is game of probability so that's why type u tahay expectation waa malada waa waxa sameeya aaminaadda expectationa waxaa rajeynaysa haddee saddex jeer ama 5 jeer ama bil gudaheed xiriir ku yihiin aakhir waa aaminaysa rajeynaysa so aaminaadda saasay ku samaysantaa so badi anaga in trading expectation waxaa u baahannahay neutral exactly so wixii baan rabnaa inaan idiisho neutral aaminaad waxaa u baahannahay in trading neutral maxaa kaloo u baahannahay in trading
series of trades perspective. laakiin maanta qaadatid SL kaaga dhaca inaad mid kale qaadan kartid haddaad tan qaadatid. Okay, belief system kasaan u baahana in trading. Waxaan u baahana belief system, confidence, kalsooni ku belief system, decision making fiican oo indecision ahayn. Belief. So laakiin aaminaadda waxay samaysmaysaa fikirkaaga joogtada ah, rajadaada joogtada ah, ku celcelis ku celcelis ku celcelis kadib boom, aaminaad baa samaysa. Laga yaabo aaminaadahan already kuwo kugu jira inay yihiin ama nugu jiraan. Ha, insha Allah hoos baan ugu tegayna. So exactly wax waay marka thoughtskaaga waxay sameeyaan chemicals loo yaqaano emotions ama shucuuro. shucuurahaaguna waxay sameeyaan ficiladuna markasta natiijada. So maanta natiijadaadu exactly hadday negative tahay waa inaad fahanto waxaas waxaa raasmaal u ah ha fikirkaaga sidaa u fikiraysid baa sababta tahay. Marka dhibta jirta waa maxay oo kale inaan xasuusin mudan oo labada mataqaanaaye ugu horeyso waa invisible, waa waxaan la arkin gudaha, maadaama gudaha caqligaaga ka dhacayaan thoughtska iyo emotions. Labada waa invisible, waxa la arkin waaye. Intangible way dhahaan iyo waxaa la taaban karin ma jiro. Qof dhakhtar oo qaliinka maskaxda sameeya weligiis u tagay shucuur ama fikir ama xasuus ama kulli looma tegin, because of they are form of energy ayay dhahaan. waa wax energy ah. So space nama qaataan, time nama qaataan. So waa thoughtskaas waaye, thoughts ayaa loo yaqaana. Okay, so intangible hadday yihiin lana taaban karin loona tegi karin waa form of energy. marka it doesn't time iyo mataqaanaa space toona male iyo mental environment. marka this mental environment-gaa ka mid yahay. laakiin labadan kale ayaa quite visible ah, waa wax la arko qofku natiijadiisa, actionkiisa iyo resultiisa. labada wax la arko, dadku qofka uga daydaan dhayan istashmaarka camal ficiladu sameynaa samarkiisa, confidencegiisa, iyo resultigiisa in aroor kastuu kacaya waa wax la arkaya natiijo. laakiin ma dareemaysid qofkan wuxuu soo saxay, because of ardayda thoughts badan ayaa loo baahaya inaan saxno. haddii tan aan saxno waa liibaanaynaa. marka tan ku xisaabta, marka waxa lagu leeyahay shucuurtaadu iyo ficilada waa reflections of your thoughts. inaad ficil labadan waxay kasoo askumaan thoughtskaaga. fikirkaaga hadduu yahay fikir negative, fikirada anagu nagu jira maxaa kamid marka environment-ga imaan. aniga personally fikirka financiga maba haysan dhaqaala. ka waran haddaa aaminsantaha maanta dhanka dhaqaalaha haddaa ka aaminsan ma lacagtaba inay adag tahay in la shaqeeyo, sidee saameyn kugu yeelan kartaa shucuurtaada? haddii ka waran haddii aad u mooday inay adag tahay in la shaqeeyo lacagta, risk ma qaadan kartid because lacagtii waa adag tahay, shucuur baa ku geedaaman. that's why you believe this money haddaa adag tahay sidoo lagu helo, yaa haddaa kurbada iyo cabsida taas kaaga imaanaysa. midda labaad, iyo lacagta maba shaqeynaysa because waxa ka cabsanayso waxa soo jeeda. haddaa loos ka cabsanayso, loos le markasta kugu imaanaa. Okay, midda labaad, ka waran haddaa ka aaminsantaha lacagtu waa xaaraan, lacagtu waa magaranaysaa waa camal shaydaan, lacagtu dembiyada soo jiidataa. holskan ogow hadda waa self limiting beliefs. aaminaada kugu jira ayaa fikirka dhalisa. fikirkanu shucuurta ayuu dhalinayaa. labadaas haddii maaliyoomi marka ficilka aad sameynaysid oo ah inaad tradeka ceerisid, inaad tradeka khasaartid, inaadan loos aqbalin, dagaalantid, all these actions you doing day in day out, marka reflection oo waxa waaye aaminaadaada. ana markuu already arday imaado ustaad wallahi consistent la-aanayo, tradeka waa ceersanayo, ma sugi karo samir male. okay, waa fahansana already dee wuxuusan si arknaya arka, because thoughts and emotions ayaa isaga ka khaldan. labada haddii loo soo toosiyo already marka ardayda waxay imaad markas diiwaangelis oo dhaha youtube-ka anoo kaa daawanana bedeshay haddaa kuu imaana ka waran ustaad. okay,
dhibaatada kale jirta waa maxay? marka lagu dhahayo shucuurtaadu iyo ficilkaagu waa reflections thoughtskaaga. laakiin haddana fiir waxa lagu leeyahay so even if the thoughts are inaccurate, haddiiba xataa khaldan tahay fikirka lagaa dhaadhiciyey, ka waran fikirka lagaa dhaadhiciyey boqolkiiba 70 waxa lagu leeyahay ama boqolkiiba 90 badi adimaba isku shubin. halkee? waa cultural beliefs. Okay, dhaqamada halkan aan ku noolnahay, lacag, faqriga, waxa ujeeda oo waa cultural beliefs. Em, maxaa kaloo soo haray? family beliefs already. aaminaado familkii aad arkayso cunuga ilaa yaraantiisii aaminaado lagu shubaa jira, dhanka lacagta ku saabsan, dhanka jirdhisidda ku saabsan, dhanka wax akrinta ku saabsan, dhanka familkiina ka war hadduusan jirin qofka weligiis buu akrin jira. adiga maanta how the hell will you do this? so waa inaad fahanto marka limit belief ayaa jira. wax akrin maba jiro, lacag si fudud lagu sameynaa online laga dhexsa ma jiro, xamaali waa in la noqdaa jiri jirta familkaaga already. so this thing waxay moodeen waxa marka inay sahlanaan tahay inay eh, inaad kaga dhex bixi karto. school belief system aa jira, aaminaadada school taada maanta shahaado degree ama bachelor haysan horumar ma gaarayso, wax ma qabanaysid and this kind of stuff. laakiin waa beentood. saasoo tahay haddee been tahay marka fiiri waa beentood. maxaa kaloo jira? friends influence ayaa jira, waa badan yihiin. so on environmentiga ayaa jira. Eh, our belief. fiiri marka adoo saa sameynaa marka ka waran haddii badi caqligaaga waxaa lagu shubaya ee beenta. aabbaha duska kaa dhihi jira aabe taajirnimadu waa, dadka taajiradu waa tuug, dadka taajirada xaaraanta cunaan, dadka taajirada fiiri odayga waxaa ku dhahayo marka hadda taajirnimo maanta maxaa ka malaynaysaa? ma inaad iska soo taajir noqonaysa mise adoo aaminaadaha la soo dirin odoon dhin taajirnimadu wax munaasib qofku ah, gacanta sare inaad noqoto bari aad ka tagto wax munaasib kugu ah. all this marka belief systemka waa wax maanta cajiiba. ka waran belief systemka ugu daran oo aad ka dhaxlaysa marka haddaad sii jarjarmaadee tahay adduunku macno male. just world view perspectiveku macno male. adduun waa adduun, of course adduunku macno male, laakiin adduunka inaad doorato maaha sile. ninka saa ku dhahayo ogow waa nin mafis ku jira oo 24 hours mas-uuliyaddiisii gabay, caruurtiisa ka warhaynin, ah, naftiisa ka warhaynin, jeebkiisa ka warhaynin, jirkiisa ka warhaynin, caqligiisa ka warhaynin. all sigaar buu dhuuqayaa, qaad buu cunayaa, mid buu dhex fadhiyaa, meel qiiqiisu sagaash ku jira, fadhi ku diri, qabyaalad buu ka sheekeynayaa. aduu marka wuxuu kaa dhaadhicina kugu soo adduun waa waxaa laga baxaya, iska fadhi celinaya, war ma hayo, is low life, noloshu ka dhacay magaranaysa. waxaa soo dhowda caruurtiisa kusii shugaya. cunug markuu arka aabe sigaar iisoo shidhahaya iyo aabe haadooyinkaas baranaya soo maha. marka walaalayaal inaan aabbayaal fiican noqono, inaynu bedelno biyigeena maanta ku sugannayo carruurteena. koowa inay anagu aaminaadahan silsiladaha ay ilaa yaraanteeni inu kasoo faraceena kasoo dhaxlan inaynu iska jejebin. ma fiicno xaqiiqi. dadkan wada waalan, islaayay, isdilay, aaminaado khaldan bay aaminsanaayeen. dad ilaahay hadda waa aaminsan yihin. marka waxaa loo baahan inaadan waxyaabaha meelaha lagaa haysto dhammaan waa halkan. adu waa yaaban halkee lageys war lacag ma sameynaysa daa aaminsanta lacagtu waa shaydaan, camal shaydaan. anaa runta kuu sheegay ma samayn karta lacag haddaa aaminsanta lacagtu waa adag tahay. meeshaasaa laga haystaa. mana aha aaminaada adigu isku shubta xataa aadan ogeyn. marka waxaan dhammaan marka isku soo daray waxay u yaqaaneen self limit beliefs. qof wax lugaha ku dhegan dhagaxaan dhabarka kaaga wada xiran, silsiladahoodu wata dhagaxaan culeys markasta kor u kacis dhahda ku soo celinaya. resistance level ayay leeyihin. sida suuqa maanta markan level resistance ya madax oo rejection usoo yeesha adina saasoo kalaa ku suganta kor u kacaas leeda. so waa aaminaadahaas. marka aaminaadaha haddii khaldayin xataa waxaa lagu leeyahay shucuur bay leeyihin.
taas waa dhibaatada. Tusaale kale haddaan maanta suuq kusoo qaadano ardayda qaali, anaga dhammaanteen suuqa markaa imaanaynay lacag un baa nugu qufulneed. Laakiin ka waran mar waxaa jirta inu wada aaminsaneen aaminaad, suuqa waa boqolkiiba boqol, there was no loss. Inkastoo been ahayd, haddana shucuur bay wadatay, shucuur farxaddeeda ah, xamaasadeeda ah, rabitaankeeda, daadsoo waa wada faraxsaneen. We were so hyped. So farxadda markastoo emotionkaasi joyga na laga jiro, we were joyous, and markastoo na laga jiro maxaan dareemayna tension, ayaan dareemayna xanaaq. kusoo challenge ayaa meesha tension ayaan dareemayna xanaaq, because challenge ayaa meesha imaanaya in la ligliyo aaminaadeen. aaminaadda la ligliyayo khaldana aaminsanin, aaminaadahaynu kaloo society-gana kasoo dhaxalnay kulli baa hal mar isla collide isku dhacaya gagagaga. bas adiga wareeriso baa kugu xirmaysa, jihadaa kaa dhumaysa, meelaad u carartaa weynaysa, markaasaad dagaalamaysa adigu. Reflex behavior ayaa loo yaqaan, inaad dagaalamaysaa koonka aakhirna waa gubaysaa, saa u dagaalamayso rudaaleeda halkee legaysta. marka hadda waa inaad ku xisaabtanto, you can't, ma awoodid generate better results without changing what you do. adoonan waxaa samaynaysaa ficilka oo ku celcelin ma bedeleen, mana samayn karno, mana bedeli karno. waxaynu samaynayna idanka mooye inaynu bedelno waxaynu dareemayno aa shucuurteen. cabsi haddaad dareemayso waa inaad bedesha oo kalsooni ku bedesha. mana bedeli kartid sidaad dareemayso idanka mooye inaad bedesha sidaa u fekeraysa. soo ma jeed, feker, dareen, ficil inay iswataan. marka that's why thinking fiican u baahan tahay. so thinkingkaa marka see ku dhisaysaa, waxaadan fahansaneyn marka waa solutionku waa maxay marka, inaad informative noqoto walaal qaali. anaa runta kuu sheegay, informative waa inaad noqoto, just very simple, informative waa inaad noqoto. caqliga bini aadamku informative. aaminaad markaad dhisayso koo, aaminaad waxaa lagu dhistaa through study. anaa runta kuu sheegay, barasho, inaa wax barato, faham, through understanding, inaa wax understanding samayso, faham. marka wax kastoo caqligaa ka maqan, marka hadduu yahay inaadan fahansaneyn dhaqaalaha, financiga faham, buugaagta akhri, hadda rich dad poor dad oo kale faham. cilmi maanta anugu leeya fiiri, ani maanta markaan fahansanaa assetska iyo liabilityga aan kala aqaan, ma dhacayso inaan lacagteedu aan kuga ciyaaro wax liability ku gado, anoo asset heli karo, anoo maalgelin lacag jeebkayga soo gelisa heli karo, maalgelin jeebkayga lacag ka bixinaysa ma aadayo. way ii kala soocan tahay, waa garanaysa, kus waa fahansana. fahan haddii aadan fahansaneen focuska, diiradda bugaag baa jira hadda hyper focuska oo kale, aad iyo aad sida interruption laskaga ilaaliyo aad buu uga hadlayaa. informationka ku shub caqliga, adiga waxa maxamuud waqtigii qaadanaya, laakiin ku celcelintaas ayaa haddaadan fahansaneen habitiska, caadooyinka, atomic habits oo kale akhri, sida caadada simplify looga dhigo marka la bilaabayo, sida caadada tusaale looga dhigo meel kasta loo dhigto. buugtay waa kuwan waxay ii sakhraysaa inaan buugta akhriyo. haddaan jimicsina dharkay jimicsiga kabadka ugu horeeyay igu jiraan saa dhaqso u ah, qur-aankii salligii meel buu yahay. so you make it visible, waxyaabaha inaad visible ka dhigto aad arkayso habits marka saas. okay, haddaa waxyaaba caqliga ku saabsan rabto bugaagta akhri, minus sida think and grow rich iyo bugaagtaasaa la akhriya, caqliga ugu fiicnaanay. oo informative marka waa inaad noqoto through study. marka markaa barata ayaa waxay ogaan doontaa, indhaha kuu furma marka silsilad balaayo inay lugaha ku haysatay. society wada dhub horta runtaa kuu sheego, society-ga halkan noogu geeda ama hopefully inay maqlayn, laakiin boqolkiiba 80 dad waxaa ku dhex jirtaan. marka adigu caqliga dhista ogaan doontaa dad wada halis deegaanka oo reer miyi baan nahay Soomaali abdi boqolkiiba 80 khatar cadiim waa. marka dadkaas ayaa ogaan doontaa inaad ku dhex jirtid.
meesha la iska haysteen dadka inay kusoo programmeen ayaga lasoo programmeen ayaga lasoo programmeen khalad khatar fakri limit and lack and limitation lagu soo barbaariyay in horumar la gaari karin ay wada aaminsan yihiin in baadiye ka tegi karin inay hanti tabci karin ma yaas waa maanta haddii dhaqdhaqaaq lagaa dareemo inaad silsilada jebinayso waxa lagu leeyahay waa waalantahay ma samayn karto waa waalantaa lagu leeyahay laakiin very dangerous waa ardayda qaar waana sababtaa kuu dhahay we don't see things how they are we see things how we are annaga saa nahay ayaa na ana eeg hadda arday baa jiray akoon faangareynayo waa wallaahi real waay akoon marku faangareynayo ardayga markuu wuxuu ustaa konton kun baa haystaa fursaduhu way kala fiican waa yar dibadda jooga lacag fiican ilaahay sii maasha allah laakiin wuxuu yidhi hadda waxaan ku fikiraya inaa 30 kun gaari aan rabay oo riyadeeda gato ah, inta kaloo soo hartana aan akoon ku faangareeyo anigana marka waxaa rabay inuu you know akoonkii uu lacagta ku wada shubto aan la manage gareeyo marka meel dhow wax ka tusay dalku joogo waa dal fiican waa dal deymaha la kala qaadan karo alright marka waxaa ka war haddii aad samayso gaariga aad deen kusoo qaadato oo just for example down payment samaysid lacag yar aad sii bixisid 10 kun ama 8 kun whatever it is dabna lacagtaada inta kale aad assetka ku shubatid oo akoonkaaga because forex ogaada ardayda qaali waa asset waa waxaan kira kaa rabin biyo kaa rabin koronto kaa rabin wax adii jeebkaa lacag ka bixinin waaye mooye inuu jeebkaa lacag soo geliyo marka forex waa asset fahma stocksku waa asset mii fahanteen wax lacagtaada haddana aad ka qaadan kartid ya jeebkaaga lacag soo gelinayso liability wax waaye wax adiga jeebkaaga lacag ka siibaya hadda guri kira haddaa ku jirto liability aa ku jirtaa because bil kasta kiro laakiin qofka guriga dhistay ogow wuxuu haystaa asaga asset u tahay because bil kasta jeebkaa ku tashanaya so waxaa la badsadaa marka assetiska taas waa aniga hadda aan u jecla inaan boosaska gato because propertygu ama boosku waa asset taada nus boos ka baxsato 3 kun ama 4 kun 3 bilood ama 5 bilood ama 10 bilood whatever it is dambe qof iib ku rabaa oo u baahanaa ku imaanaya so daadhaada xataa 8 kun oo ku rabaa profit adiga kuu saara oo kaa gadanaya marka ma iga rabi waardiyo biyo iyo biil toonna igama rabo dhulkaa waay haddaan lacagta hela haddana aan dhiso kilo okay aan kireeyo intaan 3 boos dhiso oo kireeyo bil kasta marka waa asset ani ii tahay jeebkayga lacag soo gelinaysa so markaa ku dhahay we see things how we are marka yarka wuu yaabay wuxuu yidhi aniga weliga kuma soo ugu fakiraya caqliga yani saa u dhisan adiga ma arki karti sababto caqliga saa uma dhisna lacagta bil kastana yarka siduu sameeyay hadda fiiri bil kasta mar 15 20 13 to all of percent baynu sameynaa akoonka already lacagtiisna tartiib iskaga bixiya assetkiisana wuu shaqeynaya laakiin hadduu 30 kun bixin lahaa mar dhibaato waa caqli maaha saas marka la rabaa in aad fahanto marka ma arkaysid waxa haddaadan adigu u samaysnayn sida la rabo inaad u aragto wax kasta ma arkaysid but that's why we don't see things how they are we see things how we are sida adi tahay waan wax u arkay waxaa laga yaabaa maanta mid intuu bankiga aado adeerkiisa ay dooyinkas wato 5 kun soo qaato 5 kun wuxuu xoolo ka haystay oo intuu aado magaalooyinka uu gaari soo gato bil kastana laga rabo 280 ama 300 lacaga sidoo asagii wax u arkay laakiin adiga hadda caqli dhisata maxaa sameynaya 5 kun axsadaa ku raadinaya wax bil kasta lacag soo saara xataa hadday noqoto inaad boos intaad gadato yar aad ama 10 kun lacag intaad kasoo dhigato intaad boos gato dhisto kirayso kaasoo deenta marka kaa baxa adiga booskii aa kuu haray dhismihii aa kuu haray magaraysa deenta waa iska bixisay bil kastana lacagtaa jeebka soo gelaysa bil kastana waxaa iska bixinaysa mushaar bangigu kugu laha laakiin asaga muxuu sameeyey siduu wax u arkuu sameeyey wuu orday gaarigu soo gatay gaariga marka maxaa liability waa gaarigaa 5 kun uu soo gatay adhow aduu kusoo weydiinaya shidaalku magaalada kaga soo tegi gaariga adhow cunug muxuu ka rabaa shidaal taayiro mekaanik joogto ah dhaqid qarash joogta asiga marka labada qarash qataato samuu doono marka asiga suu wax u arka waa taas waa marka caqligan inaynu dhisno solution koowaad waa knowledge cilmiga inaad siino study
you have to study conceptyada financiga uma bana xataa kurso inaad anaan I'm telling you books ka kuusoo fududeena book 100 page ayaa laga wadaa experience 5 sano inuu kaa badbaadiyo. Okay, marka solutionka intellect is also caqligeenu store of knowledge waa cilmiga storkiis. Attainmentiga marka waa sida cadaalad inaad gaadho waa inaad marka waxa koowaad oo dadku ay helaan oo ilaahayna sii waa fahamka. fahamkana badi wuxuu ka imaadaa khibradda from experience. khibraddu ha ahaato mid caadi ah la kulantay mid qof kale aad ka dhaxashay oo buug ka akhrisay that's it. aniga experience ugu badan tradingka buugaagta ka akhriyay. hadda buugga aadkii saameeyay waxaa trading the zone iyo discipline trader labada concept ayaan aad u jeclaa labada buug marka aad baa u jeclaa because of fikirkii asaa toosiyey. maanta haddaan trading kalsoonida aan haysto sabab asaaba cid kale sabab u ah ma jirto isaga sabab u ah. marka aqoomo kale ayaa jira. aqoontu waa 3 tangible knowledge ayaa loo yaqaana wax taabasho aad ku barato. tangible knowledge wuxuu noqon karaa artistic ayaa la oran karaa sida mechanica inuu taabto biro kala saari karo and this tangible knowledge and kung fu ma oran karnaa yes boxingka knowledge cilmiyadu waa sida wax adi mechanical loo qabanayo wax technical loo qabanayo sorry. marka waxaan lagu gaaraa through the 5 sense shanta dareemo ayaa ku gaaraysa. midda kale oo intellectual knowledge ayaa jira oo ku saabsan caqliga waxa hadda kuu sheegaya kulli oo informationka caqliga ku shubaysid waa intellectual knowledge. okay marka intellectual knowledge yeelato decisionkaaga wuxuu noqonayaa qurux fikirkaaga wuxuu noqonayaa qurux shucuurtaada waxay noqonaysaa qurux resultigaana iyo ficiladaadana qurux bay noqonayaan that's it because of intellectual knowledge ayaa yeelato. qofka intellectual knowledge lahayn waa indecision. adduunka dadkaas ba ugu nibca inaan la macaamilo weligaana ka tag dad indecision. dadka indecisionka waa halis ardayda qaali inta anigu aqli dhisay indecision dadka ama aniga force maanta wuxuu baray you have to don't be indecision inaad noqoto trade halkaa ma aad indecision ha noqon qaado hesitation ha noqon. dad waxaa jira intay wax kula sameeyaan wax maanta dhan adhoodina isbedelaysa marka jirojiroola ah kamillion adhow horsaas isku ogeyn maxaa dhacmay waa kugu booda. dadkaasoo kale go-aan qaadashada yar horumarku ma gaarsin haddaa aragto waa laga gaabsadaa hal oo waa la sax dabeecadda haddaa leedahay caqli inaad dhista u baahanta ani ma jeclaan waa laga taga. define knowledge ayaa jira oo maalin dhaweed inaan idin sheego jeclahay. define knowledge waa cilmiga ku saabsan revelationka sida qur-aankii oo kale cilmi inaad ka fahanto iyo axaadiistii aqli waa u baahan maaha wadaad inaad marto uga noqoto inta malyoon yuqyuq u dhacdo wadaad saasaa la dhacday sabab waajib maxaa ninkaa muxuu ku dhaamaa khamiiska uu soo xirtay oo dharka carbeeda waxaa moodaysaa inuu wax kugu dhaamo war waxuu kuma dhaamee uu waxa waaye uu akhriyey buugaag badan xadiisu akhriyey kitaabkii tafsiirku bartay siiradu bartay maxaa kale war muxuu kaluu yaqaan. marka adiga option kuu furan maxaa waaye aniga waa ka buugga kitaabkii tafsiirka waxaa soo samaysanaysaa buug tafsiir soo gado jildiga soo gasho ha gurgurin 14 bay ku dhacay ama 13 soo sii whatever it is soo qaado haddaa qur-aanka dhamaysay slightly oo hingaadina aad taqaanid oo qur-aanka ilaantaada soo dhamaysay is good soomaaliga marka ku tafsiirso albaqara kasoo bilow maalin kasta 3 page akhri intaa kelma ay samayn kartaa everyday aroortii marka salaadaada subax ka baxdo 3 page akhri halkaasaa marka wax kasta ilaahay kuugu yahay. su-aal kasta aad qabto oo naftaada ku saabsan arliga ku saabsan bastiga ku saabsan wixii soo dhacay hore halkaasaa jawaabtooda kelis maba u baahan maxaa qof facaa ku badaa ilaahay kuma bado waa inaad fahanto cilmi ahaana inuu qof ilaahay ku badan dhaqaale ahaana inuu ilaahay ku badan taa hadday strategigaaga noqoto waa liibaanta nurunta kuu sheegay
marka define knowledge is good ardayda marka subax kasta aniga maga kaftamo marka aniga waa laba page ka bilaab because of wadaadada waxay ku leeyihin xisbiga akhri xisbiga oran waa waaleyihiin ruuxa dhegeysanin qof aan qur'aan weligiis kala furo xisbi wuu ku caajisaya runta anigu kuu sheegayaa laba maalin marka xisbi ka tuurto maalinta saddexaad iyo maalinta afraad lagu heli maayo. That's how the mind works because caadada si loo dhiso ayaa ani bartay. Okay, caadada si loo dhiso ayaa ani bartay, ma fahanti? That's why marka ardayda qaar loo u baahan nahay inaan define knowledge-ka aan fahmo. Marka shalay intaas ayaan ku gabagabeynayaa. Solution-ku waa idiin sheegay waa cilmiga. Tangible knowledge-ku hadda inaad fahanto. Tangible knowledge waa wax kastoo indhahaaga iyo waxaa ka fikir. Hadda forex oo kale technically markaan sameyno waa tangible knowledge. Intellectual knowledge-ku waa psychology-ga, it's very must caqligaaga dhammaan. Define knowledge-kuna waa wuxuu ilaahay noo soo dejiyey alla subxaana wa tacaala. Diin baynu leenahay walaalayaal, gaalama nihin. Diin baynu leenahay, diinta in la fahmo waa muhiim. Marka waa la adkeeyey runta idin sheegay in dhalinyaro maan diinta ay barato wadaadada adkeeyey. Wadaadkan khamiiska dharka kuusoo xirana cadcad wuu kugu adkeynaya wuxuu kaaga dhigaa waxaa la baran karin laakiin waa beentis. waa baran kartaa horey timetable u samayso xili u samayso baran kartaa. marka qur-aanku wax kale anigu kuma jecliyo walaalayaal, waa waa hage hagaya waana ilaaliye ilaalinaya thoughts badan oo negative kaa ilaalinaya wuxuu kuu sameynayaa guideline. marka insha allah qur-aanku waa noo muhiim. marka walaalayaal intaas ayaa raba inaan kusoo gabagabeeyo insha allah dacashirka wax ka fahantay youtube subscribe sar horumar baa idin rajeynayaa. cidna ha dhegeysanin anuu runtaa kuu sheego dadka kugu geeda ama anuu hadda qashwa ku siiyey qofka cusub ama qofaan weli caqligiisa dhisin baa ku jira dadkan xataa dad 3 sano suuqan wareegaya 5 sano wareegaya oo dhunsan baa jira they are not profitable because of weli may aqbalin runta. You know what, qof intuu imaado 5 bilood suuqa runta markuu aqbalo profitable noqonaa jira iyo qof 5 sano weli khiyaali ku dhagan uu diiday inuu aqbalo suuqan riski u haayo iyo loss waayo loss aqbal diidan because of this sidaa kuu sheegay limit beliefskiisa weli ku dhagan weli tanaa haysata. So ma arkaayo wax result no result marka all you see is fakri iyo khasaaro iyo ba iyo hoog wuxuu arkaya iyo cabsi iyo naxdin iyo shock intaas kaliya arkaya. خير نرجع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.